dagaal beeleed ayaa maalintii afraad ka socdo deegaano u dhaxayso Xaysimo iyo sidoo kale wadaagsin oo ka tirsan gobolka Sanaag. Faahfaahin ayaan kaga helnaa dagaalkaas ee khasaaraha ilaa hadda la soo warinayo. Dhinaca kale, mucaaradka oo Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay 3 qodob. Haddaba maxay yihiin qodobadaas? Waxayna sheegeen in uu kaga duwan yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa, balse marka koowaad soo dhow muuqaalkan la gare sidoo kalena sii sheergaree si dad badan xogteena ay u gaarto. Gobolka Sanaag waxaa ka socda colaad beeleedyo aad u xooggan oo u dhaxayso dad markaasi shacab ah oo halkaasi wada degan. Colaadan ayaa salka ku hayso saan xogaha ku heeno deegaanka, isla markaana dadka deegaanka waxa ay soo warinayaan in dhinacyadan ay isku hayaan dhul markaasi la sheegay in macdanta laga qodo oo ku yaala gobolka Sanaag. Dagaalkan maalintii afraad ayuu qaatay, waxaana ilaa hadda la soo wariyay in ay ku geeriyoodeen tiro ku dhow 5 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 15 qof. Dagaalka wali waa u socdaa, mana jiro xal markaasi laga gaaray sidii xiisadan loo qaboojin lahaa ee u dhaxayso beelo walaalo ah oo halkaasi wada degan. Xukuumadda Somaliland ayaa lagu eedeeyay in ay ka gaabisay wax ka qabashada colaadahan soo noqnoqday ee ka taagan gobolka Sanaag ee u dhaxayso beelaha halkaasi wada degan, isla markaana isku hayo dhul la sheegay in macdanta markaasi laga qodo. Waxaana hadda dhinacyada markaasi ay helayaan saan xogaha ku helno gurmadyo xooggan oo meelo kala duwan uga imaanaya. Waxaana haatan xogtu ay tilmaamaysaa in dagaalkan uu yahay mid aad u culus marka loo eego kii socday dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. Ma jirto xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro tallaabo ilaa hadda ay markaasi qaaday, inkastoo xukuumadda ay ku mashquulsan tahay colaadaha markaasi ka taagan dhinaca galbeedka Somaliland. Haddana ma caddo markaasi qorshaha uga degsan colaadaha soo noqnoqday ee ka taagan gobolka Sanaag. Waxaana hadda lagu eedeynayaa xukuumaddu in ay wax ka qaban weyday dagaaladan dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhaca muddooyinkii u dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag, gaar ahaan dhulka ay markaasi maamusho Somaliland. Dagaalkan ayaa cabsi markaasi ku abuuray dadka deegaanka xilli barakac markaasi laga dareemayo aagga deegaanada haatan dirirtu ay markaasi ka socoto. Maalintii afraad oo dagaalkan uu galay ilaa hadda ma jirto xal rasmi ah oo dhinacyada ay markaasi gaareen oo ku aadan colaadahan soo noqnoqday ee ka taagan gobolka Sanaag. Waxaana haatan odayaal dhaqameed ka soo jeeda deegaanka ay wadaan abaabul ay doonayaan in markaasi ay ku qaboojiyaan xiisadda, maadaama ay xarga goosatay, isla markaana dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba ay markaasi sababtay. Dhinaca kale, mucaaradka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku eedeeyeen 3 qodob oo uu kaga duwan yahay madaxweynihii hore ee dalka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ahna mucaaradka markaasi ee Villa Soomaaliya qayb ka ah, waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud 3 arrimood ay ku haystaan. Waxaana yiri in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaliya ay ku haysteen arrimaha doorashooyinka, balse Xasan Sheekh Maxamuud 3 arrimoodba ay ku haystaan oo ay ka mid tahay arrinta doorashada, arrinta dastuurka iyo arrinta dhulboobka. Waxaana markaasi uu ku eedeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Sheekh Maxamuud in uu yahay nin markaasi aad uga duwan madaxweynihii hore ee dalka. Qodobadii lagu haystayna ay ka badan yihiin qodobada haatan lagu haysto Xasan Sheekh Maxamuud ee markaasi uu ku xadgudbay. Mucaaradka ayaa waxa xalay kulan xasaasi ah ay la qaateen odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay caleemasaarkii ugaaska beesha Murursade ee Muqdisho. Waxaana ka horreeyay kulan kale oo odayaasha oo kulan casuumaad ah oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu u sameeyay ay la galeen kadib. Waxaa jiray kulan xasaasi ah oo xalay dhexmaray odayaasha dhaqanka iyo mucaaradka. Kulankan ayaa waxaa markaasi laga jeediyay hadallo aad u kulkulul oo ku socdo markaasi dhinaca Villa Soomaaliya. Odayaashii dhaqanka ee goobta ka hadlay waxay si cad u sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi qaadayo tallaabooyin qaldan, isla markaana loo baahan yahay waqti xaadirkan in gacanta la qabto lagana joojiyo falalka iyo tallaabooyinka markaasi uu qaadayo ee ka dhanka ah arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka. Waxayna sheegeen in doorasho la isla ogol yahay dalka ay ka dhacdo ay tahay wadada kaliya ee markaasi maslaxa u noqon karto in dhinacyadu ay isu soo dhawaadaan, isla markaana laga fogaado colaado markaasi dhiig uu ku daato.
waxaana haatan mucaaradku ay ku baaqeen in hadda iyo wixii ka dambeeya aysan jirin wax la dhowran karo xilli 15 May ay fooda nagu soo heeso oo ah maalinta sida weyn loo hadalhayo islamarkaana uu ku egyahay muddada markaasi xilka haynta ee Xasan Sheekh Maxamuud. mucaaradku waxay wadaan abaabulkii ugu xoogganaa oo ay ku doonayaan in ay markaasi kula diriraan Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu ku adkaysto in uu muddo kororsi samaysto islamarkaana kursiga uu ku sii nagaado. waxaana xalay ay sheegeen in hadda iyo wixii ka dambeeyo maadaama odayaashii dhaqanka ee markaasi matalayay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed intoodii ugu badnaa ay ku sugnaayeen madasha, ay sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu wada aysan ahayn wax sax ah islamarkaana gacanta in la qabto uu u baahan yahay oo laga joojiyo qaladka. waxay sheegeen in xaaladdu hadda ay marayso meel xasaasi ah islamarkaana ay ka go'an tahay badbaadinta dalka. mucaaradka oo kulamo markaasi kala duwan muddooyinka u dambeeyay la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulankan ay la qaateen odayaasha dhaqanka waxa uu ku soo aadayaa xilli odayaashan ay habeen hore runta u sheegeen Xasan Sheekh Maxamuud islamarkaana ay kala hadleen arrimaha dalka. odayaasha ayaa waxaa markaasi si carale ay uga hadleen in aan loo baahnayn waqti xaadirkan doorasho la afduubto iyo sidoo kale in mucaaradka warkooda la dhageysan waayo. odayaasha ayaa waxaa markaasi ay ka careysiyeen Xasan Sheekh Maxamuud kadib fadhigii markaasi odayaasha lagu casuumay oo qaar ka mid ah ay hadallo kulul ay hawada u mariyeen Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka carooday tallaabada ay qaadeen odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu markaasi si carale oo isna dhankiisa uga falceliyay go'aanadii ay ku dhawaaqeen odayaasha dhaqanka. waxauna sheegay in dalka uu u jihaystay doorasho qof iyo cod ah, taas wax ka duwanna aysan haba yaraatay aqbali doonin. dhinaca kale warar goordhow naga soo gaaraya gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay tilmaamayaan in xaafadda Waayaabe oo markaasi ka mid ah xaafadaha Muqdisho ay isku hor fadhiyaan ciidamo markaasi milatariga Soomaaliya ah oo markaasi garab siinaya dad shacab ah oo guryahooda xoog looga barakicinayo. waxaana haatan muuqaallo ina soo gaaray ay muujinayaan in ciidamadan markaasi milatariga ah iyo kuwa dowladda federaalka ay u dirtay inay qayb ka noqdaan burburinta dhulka dadka shacabka ay degnaayeen ay isku hor fadhiyaan. waxaana laga cabsi qabaa in dagaal culus uu dhex maro dhinacyada maadaama xaaladdu ay marayso meel xasaasi ah. waxaana haatan xogta aynu ku haynaa in milatariga halkaasi jooga ay wacad ku mareen in ay difaaci doonaan shacabka lagu soo duulay dhulkooda. waxaana Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda uu hogaamiye ay ku eedeeyeen in ay wado burburin aan loo meeldayin oo dadka shacabka ah laga barakicinayo guryahooda markaasi ay degan yihiin. waxaana haatan aagaasi isku hor fadhiyo labada ciidan, waa ciidanka markaasi booliiska ah ee dowladda federaalka ay u dirtay in ay burburiyaan dhulkaasi iyo ciidamo milatari ah oo markaasi garab iyo gaashaan u ah dadka shacabka ah ee lagu soo duulay dhulkii ay degnaayeen xoogga markaasi looga barakicinayo. haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan like gareeyo sidoo kalena si share gareeyo si dad badan xogteena ay u gaarto.